maanta waxaanu halkan isugu nimi inaanu ka daahfurno tababar kooban oo socon doono muddo 3 cisho ah oo la siin doono macallimiinta dhalinta shaqo qaran qaybtii waxbarashada 30 macallin baan halkan ku tababari doonaa ku yaraan 20 macallin waxay ka yimaadeen dhalinta shaqo qaran qaybtii waxbarashada lagu soo qoray 10 macallin kalena waxa weeyaan macallimiintii sida rasmiga ah u shaqeynayay ee aan tababarka fursad u helin ayaan ugu talagalay inay iyaguna ka faa'iideystaan waa tababar runtii lafdhabar u ah hawsha macallinimo waa qaabkii macallinku wuxuu gudbin lahaa waa qaabku macallinku ardayga fasalka dhexdiisa u maamuli lahaa waa qaabku duruusta iyo casharada kala duwan uu u siin lahaa ardayda waa tababar aad iyo aad muhiim u ah waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqo oo qabanqaabadiisa iyo abaabulkiisa iyo hawshiisaba qayb weyn la ka qaatay hawshan oo aan ilaanteed noo suurto gasheen jaamacadda Alfa faraceeda Berbera gudoomiyaha jaamacadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiye Axmed oo runtii Axmed Ciise oo halgan badan ugu jira inuu wax badan waxbarashada ka qabto oo contribution galiyo jaamacado badan oo horena magaalada uu ka soo asaasay waxaan qorshayaal baan imika wadnaa lagu tayeenayo macallimiinta gobolka oo aanu doonayno macallimiinta magaalada Berbera oo dhan maaha shaqo qaran une in duruus joogta loo bilaabo gelinka dambe mar labaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaamacadda Alfa maadaama ay garatay in kaalinta kaga habboon ay ka qaataan bulshadooda oo ay waxbarashadii iyo gobolka ay ka shaqeynayeen dib ugu celiyaan waxaan jecelahay markaas bartayaasha qolada macallimiinta shaqo qaran macallinku marka ugu horeysa habkii iyo nidaamkii aad u gudbin lahayd baa lagu barayaa qaabkaad ardayga ula macaamil lahayd baa lagu barayaa culaysyo badan oo ku haysta waxa laga yaabaa inay kugu adkaato idinkoo jaamiciyiin oo rag badan oo aqoon-yahana hablayeen amaba haddana haddii aydan professionka teachingka ama qaabkii wax loo gudbinayay aydan aqoon inay culaysyo idinku hor yimaadaan ama idinku adkaato sidii aad wax u gudbinayseen marka waxaan idinku dardaarayaa muddada aad halkan joogtaan 3 cisho inaad ka faa'iideysataan waxa halkan aad ka heshaana oo wixii aad ku dabaqi lahaydeen markii aad fasalladii ku noqotaan marka waxaan idin rajaynayaa inaad si dhow uga faa'iideysataan laba khabiir ba halkan inoo jooga oo jaamacadda ka socda waa Axmed waxa kale oo inoo jooga Maxamed oo isaguna khabiir Kenyaati ah oo runtii educationka muddo badan ka soo shaqeynayay waxaan jecelahay markaa inaad fursadda ka faa'iideysan doontaan